السلام عليكم حلقة maanta waxaanu kaga hadli doonaa oo mowduuceenu yahay kuna saabsan yahay muhiimadda ay leedahay qarinta hadafka aad ka leedahay nolosha oo ay tahay in aanad dadka la wadaagin. xalqada maanta waxay inoo soo diyaarisay Dr. Sibaaq Buubaal oo ah dhakhtar iyo waliba dhiirigeliye nololeed. soo dhawow Dr. waan soo dhawahay. su-aasha koowaad ee Dr. ku weydiinaya waxa weeye waa maxay muhiimadda ay leedahay in qofku uu hadafkiisa ama riyadiisa dadka ka qariyo ilaa inta ay rumoobayso? runtii aad bay muhiim tahay qofku inuu hadafkiisa riyadiisa oo dadka uu ka qariyo, khaasatan bilowga ilaa inta hadafkaas uu run uu noqonayo dadku indhahooda ay ku arkayaan. haddaad doonaysid inaad dishid hadaf weyn, yaryo weyn, u sheeg qof caqligiisa uu yaryahay. imse jeerba fikir maskaxdaada ay ku soo dhacday ama aad hadaf lahayd ama riyo aad lahayd oo aad la wadaagtay asxaabtaada iyo familigaaga, markaas intii ku niyad jabiyeen ayuu hadafkaasu halkaa ku gubtay. ma ogtay sababtay ku niyad jabiyeen? sababtu waxa weeyaan ma arkayaan waxaanad arkaysid adigu kaliga. waa maxay sababta aanay u arkayn waxaad arkaysid? because ama sababtu waxa weeyaan ilaahay ugumuu talagelin iyaga inay arkaan fikirkan ama hadafkan adigu ilaahay kaliga uu kugu talagalay inaad aragtid oo kaliga inaad hadafka aad gaadhid. su-aasha labaad waxay ina leedahay Dr. maxaa tusaale u haysaa inuu qofku hadafkiisa qariyo sidoo kale uu la dhaqmo sidii ilmo yar oo dhashay oo waliba koraya? mis weydiisay sababta markastay maskaxda ugu soo dhacdhacayso ama aad sawiranaysid adigoo mashruuc ama business furtay? waa maxay sababtaad u sawiranaysid adigoo qalin jabiye oo jaamacaddii dhamiyey oo shaqo wacan ka shaqaynaya? waa maxay sababta maskaxdaada ku soo dhacayso adigoo guri weyn leh oo guriga aad sawiranaysid ama gaadhi qurux badan ka haysanaya? waa maxay sababta waxan ama fikirkan markastoo kugu soo noqnoqonayo? sababtu waxa weeyaan ilaahay baa kula hadlaya. ilaahay wuxuu doonay inuu ku tuso wuxuu kuu diyaariyey ee ku sugaya. ilaahay wuu ku abuuray, adduunkuu ku keenay, waxaanu ku tusaya waxa ku sugaya ilaahay uu ku hayo uu ku qarinayo. Albert Einstein wuxuu yidhi imagination is everything. It's a preview to life's coming attraction. wuxuu yidhi sawirka ama fikirku ama imaginationku ama khayaalku waa wax kasta. waxaa lagu tusaya waxa kuu soo socda ee nolosha kuu diyaarisay. mis weydiisay mobiilkan maanta aad ku hadlaysay siduu imi? qof baa sawirtay oo ku riyooday. qofba maalin isagoo telefoonka guriga yaale ee waayarka gidaarka ku dhegsan berigu jiri jiray isagoo telefoonka maalin ku hadlay ayuu isiri dibadda wax ka doon, markaasuu telefoonkii uu ka tegay. markaasii niyadiisa ku soo dhacday baxaan u samayn waaye ama muxuu u jiri waaye telefoon meel kasta la qaadanayo oo la sidsidanayo. markaasuu mobiilka uu imi. qofbaa socodkii ka daalay, markaasaa gaadhigii la sameeyey. qofbaa ka daalay inuu socdo oo idhi manduulo cirkaba, markaasay dayuuradii ay timi. wax kastoo maanta nolosha aan ku arkayno qofbaa sawirtay oo ku fakaray oo maskaxdiisa ilaahay ugu soo riday oo hadhowtana xaqiiqad ayuu noqday. fikirkan kugu soo dhacdhacaya markasta iyo waxaan maskaxdaada ku soo dhacaysa waa wax ilaahay kuugu talagalay adiga keliga oo dadka kale ma arkayaan. waa wuxuu ilaahay ku tusayaa wuxuu kuu diyaari ama nimcadu kuu diyaari ee kuu soo socotay ee maalmin maalmaha ka mida nolosha marka diyaar u noqotay aad u noqotid kuu imanaysa. su-aasha saddexaad waxayna leedahay Dr. ma jira waxyaabo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu diinteena kaga sheegay ama waxyaabo taariikhiya oo ay culimadu ka sheegeen inay muhiim tahay in dadku qariyaan ahdaaftooda weliba ay ka qariyaan dadka kale? tusaaleed waa cajiib baan hayaa oo aan rajaynaya saameyn inay ku yeelato dadkeena dhegaysanaya. haddaa maqasheen ma maqasheen nin ilaa Steve Harvey. Steve waxa weeyaan nin Afrikaan Maraykana oo caana oo telefishinada ka hadla oo milyaneer oo buugaag badan qoray oo saameyn ku leh bulshada Mareykanka. ninkaas markuu noloshiisa uu ka hadlay wuxuu yidhi markan 10 jir aan ahaa ayaa waxaan lahaa haghago. marka caruurta iskuulka ay gari waadeysan jir waxay ii bixiyeen vum baa lay bixiyey. sababtu waxa weeyaan xuruufyada qaarkood ayaan odhan kari jirin oo haghagan lahaa. maalin maalmaha ka mid a macallimadiiba waxayna siisay waajib waxay nagu tiri
iisoo qora aroorta qof kasta riyadiisa iyo hadafkiisu doonaya nolosha inuu gaadho. qaarba waxay soo qoreen waxaan doonaya marka weynaada inaan doctor noqdo, qaar waxay soo qoreen engineer, qaar wuxuu yidhi waxaan doonaya inaan tareen kaxeeyo, mid wuxuu yidhi dayuurad baan doonaya inaan kaxeeyo. isagii Steve Harvey isagoo weliba hagaagale oo aan hadli karin ayuu wuxuu soo qoray waxaan doonaya telefishinada inaan ka hadlo oo caan aan noqdo oo telefishinka laga daawado. macalimadba intii xanaaqday ayaa galaaska hortiisa oo dhan bay ku tiri kaalay oo sabuuradii hor istaajisay. wuxuu ku leeyahay aniguna waxaan isiri wax wacan baad qortayo xidig baa lagu siinayaa, laakiin waxay ugu yeedhay iyadoo hadaf kale leh ayay u yeedhay ilmihii yaraa. waxay ku tiri waa maxay waxaanad waraaqdaada ku qortay, waa maxay waxaan waalana aad qortay. wuxuu siri u jawaab uu hadli kari waaye. waxay ku tiri ii sheeg iskuulkan oo dhan ma jiro qof telefishinka kasoo baxoo caan noqday. wuxuu siri u jawaab wuxuu yidhi waxay ku tiri ii sheeg reerkaaga iyo waalidkaaga iyo walaalaha qof telefishinka kasoo baxay ma jira. markaasuu siri u jawaab wuxuu yidhi waxay ku tiri xaafadaada iyo jaarkaaga ma jira qof telefishinka kasoo baxay. wuxuu siri u jawaab uu jawaabi kari waaye. waxay ku tiri balis eeg maba hadli kartid, sida tahay bal eeg qof sidaadoo kale siduu telefishinka uga soo baxaya. wuxuu ku leeyahay gurigiiban kusoo noqday anigoo niyad jab badani hayo ooyaya. waxa ka daranna xaafadii waalidkaygaba isugayo ay la hadasho igu dirtay. markaasuu waalidkaygana imaago igu yidhi maxaad ismoodaysaa maada wax macquula aad ku qortid waraaqda. Steve Harvey wuxuu ahaa qof aaminsan hadafkiisa iyo riyadiisa oo hadafkaasu dhiigaya xididada uu soconayo. marka uu ka hadhi waayay hadafkiisa oo niyadjabkii macalimadda uu kula kulmay iyo hadhowto niyadjab far badan oo nolosha kula kulmay ilaa intuu hadafkiisii uu gaadhay isumuu dhiibin umanuu joojin. Steve Harvey maanta dadka aanan garanaynin waxa weeyaan fanaan telefishinada filimada matala, waa nin qoraalo ah, buugaag buu qoraa caana, telefishinka ayuu ka hadlaa, barnaamij maalin kasta wiigi 7 cisho soo gala oo la yidhaahdo Steve Harvey Morning Show. barnaamij kaluu leeyahay telefishinka ka soo baxa Steve Harvey Show la yidhaaho. barnaamij raadioga ka soo baxa raadioga Mareykanka ayuu leeyahay. waa ninka qoray buugga la yidhaaho Think Like a Man Act Like a Lady. sida buuggana dumarku u qoray wuxuu leeyahay u dhaqan si gabadh laakiin maskaxdaadu sida ragga u shaqayso. buuggaas 2008 wuxuu ahaa buugaagta ugu iibka badan ilaa 2010 Mareykanka. Steve Harvey wuxuu leeyahay macalimadeydii inay jabisay barigan yaraa waxaan sameeyay sanad kasta ciidka Christmaska intan telefishin weyn iibiyeen hadiyad ugu diri jiray. sababtuna waa maxay? waxaan doonayaa inay wiigi 7 cisho telefishin anigoo ka hadlaya oo isku kalsoon oo guuleystay inayga aragto si ay u garato ina qofku inuu hadafkiisa u gaarayo haduu aaminsan yahay si kasta wax kasta lagu sameeyo ama la niyad jabiyo inuu qofku hadafkiisa u gaarayo haduu aaminsan yahay. marka shakadaas waxay tusaale ku tusaysaa hadafkaaga ama riyadaada dadka looma sheego, khaasatan dadka caqligooda yaryay ee xumaanta ay ku beerantay ee xasadku ku jiro. su-aasha ugu dambaysa waxayna odhanaysaa maxaa dhacaya haddii aan hadafkayga dadka u sheego Dr. Sibaaq? way jirtaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu yidhi man samata najaa, qofka aamusa wuu badbaadaa. xadiis kalena wuxuu yidhi عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. قرشينا يا هدفكين يا حاجدين قرية لأنه سببتو حويان قف كستو لهن معدسي ولا حاسدة. الإمام ابن القيم الجوزين وحوري اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك. dadka ka qari dahabkaaga, dahabku ilaahay ku siiyo waxayaan xoolahaaga, lacagtaada, mushaharkad qaadatid waa imisa, gaarigaaga imisaad ku iibsatay, gurigaaga imisaad ku dhisatay, waxa soo nimcada ah dadka ka qari. dahabkana waxa weeyaan qorshe kasto aad wadid ama doonaysid inaad samaysid. hadda doonaysid guri inaad dhisatid qari, hadda doonaysid mashruuc guura مثلا aad guursanaysid qari ilaa inta meher ku dhaco. hadda doonaysid inaad
mashruuc ama ganacsi aad furtid ilaa intuu shaqeeyo dadka ka qari qorshe kasta iyo wax kasta wadid dadka ka qari ilaa inta dadku indhahooda ku arkaan uu hirgalo sayidina yacquub nabi yacquub calayhi salaam inankiisa yuusuf calayhi salaam wuxuu ku idhi yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka cala ikhwatika fayakiidu laka kayda sadaqa allahu alcadiim wuxuu idhi riyadan aad ku riyootay adigoo hurda walaalaha ka qari yaanay ku xaasidin xataa riyadaad ku riyoonaysid adigoo hurda waa la qariyaa oo tana waa laisku xaasidaa ta ugu dambeysa wuxuu idhi ibn alqiyam wuxuu idhi madhabka waxa weeyaan cibaadadaada diintaada haddaad qiyaamileyl aad tukatid dadka ha u sheegin haddaad soontid dadka ha u sheegin haddaad qur-aan akhrisatid dadka ha u sheegin dadku haddaanay nasiixad ku weydiisan adigu nasiixad ha iska siinin naftaada ha ka hadlin waxaad jeceshahay waxaad necab tahay waxaad ku jilicsan tahay haddaad xanuunsanaysid dhibaatada ku haysata wax kastoo ku saabsan naftaada ha ka sheekaynin cumar bin khataab wuxuu idhi nadamtu cala alkalaami maraat wamaa ندمت على الصمت مرة wuxuu ku leeyay in badan baan ka qoomamay inaan hadlay oo hadal iga soo baxay aan ka xumaaday laakiin aamuskayga weligii kamaan qoomamayn kamaan xumaanina su-aasha ugu dambaysa waxay odhanaysaa maxaa dhacaya haddii aan hadafkayga dadka u sheego doctor Sibaaq haddaad dadka hadafkaaga u sheegtid wax badan baa runtii dhacaya khaasatan dadka nimka social media ku jira tiktoka noloshooda cuntaday guriga karinayaan waxay cunayaan dharkay gashanayaan meeshay u dhoofayaan waxaasoo dhan aad soo dhigaysaan dhibaato ayay idiin soo jiidaysaa sababta waxa weeyaan dadkan daawanaya ama nimcadad haysad dadka aad tusaysid dad fara badan baa raalli ka ahayn oo qalbigooda oo madow yahay oo kaa xaasidaya waxaa jira kale xasadka ilaahay qur-aankan uu ku sheegay oo laga yaaba noloshaada inuu mugdi badan geliyo ta kale waxa weeyaan waxa in badan la hadal hayaa laga hadlaa ama haddaad fikir leedeed markasta dadkaad u sheegtid maba hirgalo maba dhaco waxa kale jira haddaad matalan qorshe aad lahayd dadkaad u sheegteed ku guulaysan weydid dee cadowgaa kugu farxaya marka haddaad hadaf aad leeday oo aad ku fashilmatid oo aad qarisid cidina ma ogaanayso cadowguna uma jabaysid waxaa xasuusataan markasta hadafkaad leeday ama riyadaad leeday ula dhaqan sida shamciga iftiinkiisa loo baqayo la ilaalina in hawo yar ay timaado ay bakhtiiso labadaada qamacood shamciga ku qari si aan hawadu iftiinkiisa u bakhtiinin hadafkaaga waxaad ula dhaqantaa sida ilmo yaroo koray oo soo barbaaraya oo looga baqayo inuu kufo ama xanuun uu qaado ama cadceeda ama dibadda inuu u baxo sidaas kale ula dhaqan ilaa inta kuu hirgasho waxaanad xasuusataa markasta qof kastoo nimcad leh waa maxsuud calayhi salaatu wasalaamna nabigu wuxuu idhi man samata najaa qofka aamusa ayuunbaa badbaada waxaanad xasuusataa kale haddaad doonaysid hadaf weyn ama riyo weyn inaad dishid u sheeg qof caqligiisu u yaryay siduu sheegay Steve Harvey waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu